Manihin koox qaadi karta Premier League Arteta oo furka ku tuuray xidigaha kooxdiisa. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa si adag u dhaleeceeyay ciyaartoydiisa kadib guuldaradii hal eberka ee ka soo gaartay West Ham United, isagoo sheegay in ay ka maqnaayeen heerka loo baahan yahay si ay ugu guuleystaan Premier League. Gool uu dhaliyay Bowen daqiiqadii 44 ayaa ku filnaatay in West Ham United ay guul lama filaan ah ku gaarto Emirates Stadium, halka Arsenal ay ku guuldareystay inay abuurto fursado badan iyada oo kaliya 2 kubadood ku bartilmaameysatay goolka. Guuldaradan ayaa Arsenal ka fogeysay hoggaanka horyaalka iyadoo haatan 8 dhibcood ka dambeysay Liverpool oo haddii ay xadda garaacda Manchester City farqiga dhibcaha sii kordhin doonta. Ma aqbalayo marmarsiyada weerar la'aanta ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mikel Arteta. Arsenal ayaa wajahday West Ham iyadoo aan haysan weeraryahanno rasmi ah kadib dhaawacyadii soo gaaray Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli iyo Bukayo Saka, taasoo keentay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Michael Merino loo adeegsado booska weerarka. Si kastaba ha ahaatee, Arteta ayaa si adag u diiday in maqnaanshaha weeraryahanno loo aaneeyo guuldarada, isagoo yiri maya ma aqbalayo sababtaas. Waxaan ka hadlayaa heerka iyo xasiloonida ciyaartoyda maanta. Anigana waan ku jiraa. Waxaan dareemayaa inaanan gaarsiisnayn heerkii ay ahayd inaan gaarno si aan ugu tartanno horyaalka. Ma ahayn heerkii loo baahnaa. Waxaan u baahannahay inaan ka caroono wixii nagu dhacay. Arteta ayaa qirtay in Arsenal aysan u qalmin guul kadib bandhigii liitay ee ay soo bandhigeen, isagoo sheegay in kooxdiisu aysan si sax ah u difaacan, isla markaana ay kubado badan si sahlan u lumiyeen. Inkasta oo aan 20 jeer toogana goosha, marna maan dareemin inaan ku jirno heerkii aan u baahnayn si aan halis badan u abuurno. Waxaan luminay kubado badan taas oo u ogolaatay West Ham inay fursado badan ku hesho goosheena. Waa inaan isku daynaa inta karaankeena ah, laakiin hadda horyaalka gacanteena kuma jiro. Markii wax laga weydiiyay in Arsenal ay ka hartay tartanka horyaalka haddii Liverpool ay garaacdo Man City, ayuu Arteta ku jawaabay, horyaalka hadda gacanteena kuma jiro, laakiin waxa aan aad ugu caraysanahay waa waxyaabaha ay ahayd in aan si fiican u sameyno, balse ma aanan sameynin. Waxaan luminay fursado, taas ayaana ugu weyn sababta aan u carooday.